بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أكثر ذكر هذه اللذات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. waxaan naftayda iyo ehelka, qaraabada, jiiraanka, asxaabta, culimada, akhyaarta dalka Somaliland, ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka muslimiinta ka tacsiinaya geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray, Sheekh Aadam Siiro, oo sheekh iyo caalim iyo daaci ahaa, oo habeennimadii jimcihii ku geeriyooday dalka Hindiya magaalada Hyderabad. shalay oo axad ahna lagu aasay magaalada Hargeysa, gaar ahaan xabaalaha Baqiic, oo uu sababteeda lahaa in dadku ay halkaasi noqdaan qaar ka dhigta hoyga rasmiga ah ama gurigii aakhiro. geerida culimadu, iyadoo mar walba geeridu xanuun badan, ayaa geerida dadka culimada ah iyo ducaadii ay kasii xanuun badan tahay. sababtoo ah xadiidkii Cabdillaahi ibn Camr ibn Caas wuxuu rasuulku ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, ilaahay markuu cilmiga qabanayo, cilmiga uun ma qabtay, waxa uu qabtaa dadka ahlucilmiga ah. markuu ahlucilmiga qabtana, dadkii ay waayaan cid ay wax weydiiyaan ama ay su-aalaan, waxaa farabata dadka juhaasha ah ama wax magaratada ah. dee jahli iyo aqoon darri ayay ku futwoodaan. taasina waxay sabab u noqotaa inay nafahooga iyo dadka wax weydiiyeyba ay halleeyaan. marka musiiba mowtul culamaa waa musiiba aada iyo aada weyn. arrintaasi waan ka tacsiyeynayaa dhammaan culimadii iyo akhyaartii iyo ducaadii uu ka baxay Sheekh Aadam. ilaahayna waxaan uga baryayaa in ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa waasica ah uu ku arsaaqo, qabriga u waasiciyo, ugana dhiga rawdatun min riyaadil janna. Sheekh Aadam oo dee khayrkiisa iyo wanaagiisa kiliib iyo laba kiliibtoona aan lagu soo koobi karin, maragii markhaatina aan ugu filnayd, dee sidii tacsidiisu ay saameynta ugu yeelatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba, si gaar ah dadkii magaalada Hargeysa ku noolaa oo aynu arkanay dee dadkii tirada badnaa ee kasoo qayb galay janaasada. waa arrin wanaagii khayr badan ka markhaati kacasa. ilaahayna subxaanahu watacaala ha u rumeeyo. Sheekh Aadam khayrkiisa wanaagiisa waa laga sheekeeyey. nin khayr badan buu ahaa, dhinac waloo la eego ama lasoo qaataba, oo ka mid a abwaabul khayr. si gaara waxaan u xusayaa, anigu ka xamse ahaan waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibka u yeeshay inay mashaariic khayriya ka wada shaqeeyaan, qaarna taliyo tusaale ay kala qaataan. mashruuca koobaad inuu ka wada shaqeyno wuxuu ahaa mashruuca xabaalaha qeybtoodii labaad. laba qaybood bay xabaaluhu ahaayeen. qayb waa qeybtii hore buuxsantay, qaybna waa qeybtan labaad ee Baqiic loo yaqaano. markii Baqiic la bilaabayay ee qeybtan hore ay buuxsantay, ayaa sheekhu dad badan buu hawshaasi howlgeliyey ama kala shaqeeyey. markii laga yimaado dadka wax bixiyey, dadka abaabulka galay baan ka mid ahaa. garoonka 31 May ama dhalinta iyo garoonka xawaalaba iid ka mid ah iidihi aan qiyaastii filay 2015 laga kacay si dadka looga ururiyo kharashaad. taasa ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyey inaan Sheekh Aadam ka wada shaqeyno. markii dambena alxamdulilah waa lagu guuleystay oo inaga aragna sidii sheekhu hawsha u waday. mashruuca labaadna waa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista, oo uu ka mid ahaa mustambeedkeeda iyo dadka dee tale iyo tusaalaba ka geysta. dabcanna dee halkaana qayb libax uu ka qaatay. aniguna waxaan ka mid ahaa howlwadeennada sida tooska aan ula shaqeyn, laakiin hadba wixii hawl looga baahday kala shaqeeya. mashruuca saddexaadna wuxuu ahaa mashruuc lagu wacyigelinayo
ardayda dugsiyada dawliga ah dhigta oo anaga rag ka mid ah khiyaartu aan sabaabulnay hawshaana sheekhu waa nagala shaqeeyey taliya tusaalena waa ka geystay saddexda arrimood baan ka xasuustaa inaanu sheekha ka wada shaqeynay runtii aad iyo aad bay damaqday geeridiisu albaabo badan oo khayr ah oo nagaga beegnaa oo qabanay bay nagu soo banaanaaday ilaahay waxaynu weydiisanaa biasmaa'i lxusnaa wa sifaati alculaa in ilaahay subxaanahu watacaala cawad khayr qabi naga siiyo isagana u naxariisto dembigiisa u dhaafo nebi maxamedna uu ka helo midna rafiiqa inagana ilaahay subxaanahu watacaala inooga daba naxariisto wajazaakum allahu khayr